eraygan ka daba taagantihiin maxay aadaa waa laga soo badiyaa joojiye waa soo guulaysteenaa koobana idin keenina ilaa idinkas qadar haddee naqatana ee naqabatana dee qadarta ilaahay aaminsanaa waraahda maalinta oo ka jeediyey gegida aadan cabdulle cismaan iyo qaab ciyaareedkii iyo hogaamintii cajiibka ahayd ee uu la tegay garoomada Addis Ababa taa uu rooga ku cunsiiyey dhammaan kooxihii kasoo horjeeday isaga iyo wiilashiisa oo moraalkan la hiba waxa ay dhaliyeen guul ay Soomaali ku wada faraxday 20 milyan ee dunida dacaladeeda jooga kuwan Afrikaantu way rumaysan wayn inay Soomaaliyiin yaqa kuwan ay lahaayeen jacayl waxay lahaayeen hadaf waxay lahaayeen ujeedo guusha ayay jeclaayeen wax kale ma jecleen guushii ayayna gaareen Soomaalidii hore waxa ay ku qanacsanaa jireen guuldarada ayagoo madaxooda hoos geynaya ayayna tagi jireen garoomada laakiin maanta waxaa la arkay Soomaali banooni ku kafaaxaysa ku raaxaysanaysa ku jeestaynaysa oo dadka sanka u marmarsiinaysa hadaba sanka ya salaam Macallin Nuur Amiin iyo caruurtiisa uu Addis Ababa geystay ku dayasho ay mudan yihiin cajabku waxa uu leeyahay baahiyuhu waxay yihiin kuwa guud iyo kuwa gaar baahiyaha gaarka ah qof walba iska xalin karaa laakiin baahiyaha guud ee bulshadu wada wadaagto xalintoodu waa mid aad u dhib badan marka guushooda la gaarana guushoodu waa mid aad u farxad badan wadanka Soomaaliya waxa uu xirnimadiisa qaatay 1960kii ilaa iyo markaasna waxa wadanka isku kala bedelay dawlado kala duwan wadanku wuxuu lahaa wasaarado ciyaaro oo kala duwan sidoo kalena waxa uu lahaa xiriir sports oo kala duwan inkastoo Soomaaliya haata ka hor ay guulo ka gaartay koobka jaamacadda Carabta iyo Afrika oo ay gaartay wareegyada afardhamaadka iyo rubuc dhamaadka hase yeeshee sidoo kale Soomaaliya waxa ay haata ka hor ku guuleysatay tartamada Olombikada ee dabaasha iyo orodka sidoo kalena waxa ay kama dambaysta soo gaartay tartanka feedhka adduunka hase yeeshee Soomaaliya markii ugu horeysay tartan caalami ah kubadda cagta ku guuleysata oo koobka soo qaada waa kii ugu horeeyay ilaadan 2022 waxa ay xil ciyaareed u qurux badan dhammaan bahweynta ciyaaraha ee Soomaaliya waayo waxa ay ku guuleysatay Soomaaliya The Ocean Stars xulka aan ka hadlayo waa wadankayga hooyo koobka Sakava Under 17 2022-2023 championskiisu waa Soomaaliya haddaba maxay tahay motivationka ama dhiiranaanta inta la eg ee ku dhalisay in xulka Soomaaliyeed ay u guuleystaan sida xulalka caalamka Italy, Spain, France, Brazil, Denmark wadamada waaweyn ee koobka qaad sababo badan midda koowaad sportiska Soomaaliya oo haatan hormaray midda labaad meediyaha oo kaalin muhiim ah ka qaatay xulkan siiyayna boonboonin tabin iyo waliba ka qayb qaadasho midii ugu sareysay midda saddexaadna waxa ay tahay in xulka kubadda cagta ee daayirta ah iyaga iyo macallinkooduba ay aaminsanaayeen inay soo guuleysan doonaan oo ay koobka soo qaadi doonaan horta in aad u dhalatay inaad guuleysato oo aad aaminsanaato inaad guuleysanayso oo aan laga guuleysan karin laftirkeeda ayaa guul ah Soomaalida hankaas iyo himiladaas goor hore ayuu ka dhintay mana lahayn waayadan sayeeshee Macallin Nuur Amiin iyo wiilashiisa yaryar ayaa haatan dib u soo noolay enerjigaas waxa uu maalintii uu aadan Cabdulle Cismaan ka baxayay Nuur Amiin noo ballan qaaday inuu koobka keeni doono carrada hooyo wayna sameeyeen isagii wiilashiisa hurdada aan hurday caawa waxay ila tahay hurdooyinka aan hurdi jiray habeenadii ciida bariyo kale waa ciid markii la yiraahdo ilmaha yararka ama seexan jirno so anyway waxa weeye Soomaaliya waxaan leenahay guul xulka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee 17 jir waxaa tihiin geesiyaal magacyada ugu waaweyn ee la soo calaamadeeyay waxaa kamid ahaa Cabdixaafid Janosay kabtanka Macallin Nuur Amiin laacibka cajiibka ah golhaya Marshaale hogaamiyaha cajiibka cunugan waxa ugu soo dhacay marka arka Portugal daayirka Arsenal Ramsadal iyo Portugal Soomaaliya waa isku mid Portugal waxa uu rajeynaa mustaqbal weyn Xafiid sidoo kale waxa uu rajeynaa horyaalada waaweyn sida horyaalka Qatar horyaalka Turkiga in laga soo dalbado dhawaan wayna dhici doontaa insha Allah waxa rajeynaa ilmahan in laga warqabo la ilaaliyo kooxaha waaweyn oo hadda wadanka inay saxiixdaan ilmahan ee si ilaashada insha Allah guuleysta ayaan leeyahay inaba caadimatiin xulka daayirta 17 jirada Soomaaliya dhaxal weyn ayaa abanoreed guuleysta Allah idin xafido in asxaabta sideedoo kale caawa faraxsan waxaan leeyahay ambaliya Soomaaliya Soomaali baa leh waa hal ku dhigi Cabdi Xafiid oo nasiiyay waxaan idin leeyahay halka ka wada socono bartwa bartiini ummadda media 24 bar ay gaar u leedahay dhalinyaradu daba dhalinyaro waa kulankeena
waa kulankiina, waa koobkiina shaaha ah, waa kaalintiina, waa kaftankiina iyo kifaaxiina. Ummadda Media 24.